بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسو دوادا رداقين قف كستا oo aad aragto noloshan adduun waxa uu leeyahay shakhsiyad, nafsiyad, habdhaqan, jid iyo psychologiyad u gaar ah isaga oo aan cidina la wadaagin. Koritaankiisa, dhalashadiisa iyo siduu u fakarayaana waa gaar isaga u khaas ah oo aan la wadaagin. Unugyada dhiigiisu waa gaar si khaas ah oo isaga oo kaliya u gaar ah u shaqeeya. waxa uu leeyahay hidde-sidayaal iyo kromosomo u gaar ah. caarada farihiisu isaga ayay u gaar tahay. midabka timihiisu isaga ayuu gaar u yahay. dhanka gudahana waxa uu leeyahay shakhsiyad gabi ahaanba balaayiinta adduunka ku dhaqan ka duwan oo isaga u gaar ah. waa natiijo ka dhalatay hab nololeed iyo qaab barbaaritaan oo isaga u gaara xataa aanay mataanuhu wadaagin. waayo aragnimada nolosha inagaga hor imanaysa iyo hab fikirada aynu u maareynayno dhibaatooyinka aynu la kulmaynaana inaga oo aan dhaadanayn ayay shakhsiyadeena qaabeeyaan oo si cayiman u qaabeeyaan sida uu wastaadku dhismihiisa u qaabeeyo oo kale. haddaba dhibaatadu ma aha in dadku ay kala noocyo duwan yihiin. dhibaataduna ma aha in mid kasta oo inaga mid ahi uu xaaladiisa nafsadeed iyo shakhsiyadiisa isaga u gaar ah leeyahay. mushkiladu waa in inteena ugu badan aynu ku fashilanno inuu qofku daahfaydo oo ogaado waxa uu yahay, sida uu u fakaro shakhsiyadiisa gudaha iyo natiijada ka dhalatay waayihii nololeed ee uu soo maray. yacni inteena ugu badan ma yaqaanaan shakhsiyadooda daakhiliga ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku beeray. waxa aynu u qaybsanahay in isu taqaana inay dadka oo dhanba ka sitaan oo aanay cid la mid ahi jirin iyo in aan waxa yihiinba garanayn. labaduba ay ku fashilmeen dhaaditaanka iyo garashada dhabta ah ee noloshooda. sidoo kale waxaynu ku fashilanaa inteena ugu badan inaynu fahanno in dadka kale ee adduunka inagula dhaqan qof waliba uu leeyahay shakhsiyad gaar ah oo si gaar ah u fakaraysa. inaguna aanay ahayn inaynu aragtideena iyo afkaarteena ku dirqino oo ku khasabno ama inay naga duwan yihiin oo aanay ra'yiga inagu waafaqayn aynu ku dhaliilno oo ku colaadino. ogow nolosha inteeda kale ee guud dadka ayaad kala siman tahay oo kala mid tahay. marka dhanka qaab nololeedka ay noqoto bulsho ayaad ka soo jeedaa oo ku abtirsataa. si shakhsiyad kuu gaara oo aad majaalada iyo laamaha nolosha midood si wanaagsan wax ugaga qaban karto ayaad leedahay. arrin gaar ahna waad ku habboon tahay. macdan gaar ah oo aad leedahay oo aanad dhaadaninina way jirtaa. ogow macdantaadaasi nooca ay tahay baadhbaadh oo raadi shakhsiyadaada qarsoon ee marka aad u soo jeesato inaad qof waxqabad leh noqoto oon isu kaa muujinaysa. kadibna nolosha inta aad kaga habboon tahay kaga hagaag. marka xigana ogow dadka kale qof waliba inuu kaa shakhsiyad iyo nafsad duwan yahay. sida Ilaahay u abuuray ku ixtiraam oo ku qadari. adiguna si qurxoon oo bilaa buuqa ayaad u noolaanaysaa. dadka Ilaahayna way kaa nabadgelayaane. garo shakhsiyadaada daahsoon ee kuu qarsoon kadibna is aqoonso adigu qof waxqabad lehna noqo. waxaan rajaynayaa barnaamijkeenan maanta ama mowduuceenan aynu ka hadalnay inuu wuxuun ka anfici doono. aad baa ugu mahadsantihiin ku xidhnaanshaha kanaalka iyo muuqaalada aan soo gelino. inta ka horeysa barnaamijka kan xiga waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.